Maalin ayaa waxaa dhimatay gool kadib markii ay dhashay. Xilligaas meesha waxaa marayay xayn ida ah. Cagabaruurkii ay dhashay goosha wuxuu ku darmay oo raacay idihii meesha marayay. Iduhuna waxay u qaateen inuu ka tirsan yahay iyaga. Sidaa darteed, cagabaruurkii yaraa wuxuu ku dhex koray idaha. Xilligii uu ku dhex noolaa idaha, wuxuu aaminsanaa inuu lax yahay, maadaama iyaga uu ku dhex koray. Sidaa darteed, caadi ayay u ahayd inuu u noolaado sidii neef ido ah. Wuxuu noqday mid cuna cawska iyo caleenta. Wax fikrad ah kama uusan haysan gebi ahaanba libaax wax la yidhaahdo. Weligiisna kuma uusan fakirin, kumana uusan riyoonin inuu libaax yahay. Muddo markii uu ku dhex noolaa idaha dhexdooda, cagabaruurkii yaraa wuu weynaaday oo wuxuu noqday libaax dhalinyaro ah oo qurux badan. Maalin maalmaha ka mid ah, idihii waxaa soo weeraray libaax kale oo duurjoog ah. Aarkii weerarka ahaa markii uu arkay libaaxa yar ee idaha ku dhex jira, wuu aamini waayey wuxuu indhihiisa ku arkay. Yaab iyo fajac ayay ku noqotay inuu arko libaax ida ku dhex jiro oo aysan ka baqaynin. Wuxuu go'aansaday inuu qabto libaaxa idaha ku dhex jiro oo uu faraha ka qaado idaha si uu u ogaado sababta ku kaliftay arrintan. Xayntii idaha ahayd markii ay arkeen libaaxa, waxay bilaabeen inay cararaan si ay naftooda u badbaadiyaan. Sidaas si la mid ah, libaaxii dhalinyarada ahaa isagiina idaha ayuu dhex cararay si uu naftiisa u badbaadiyo. Inkastoo ay ku adkaatay aarkii weynaa inuu qabto libaaxa dhalinyarada ah, haddana ugu dambayn wuu ku guuleystay inuu qabto. Wuxuuna ku yidhi, ninyahow dabbaalka ah, maxaad iiga cararaysaa? Libaaxii yaraa wuxuu ahaa mid ooynaya, isla markaana barooranaya. Wuxuuna mar walba ku soo celcelinayay, fadlan faraha iga qaad, anigu lax miskiin ah ayaan ahay. Wuu gariirayay isagoo sidii idaha oo kale u ciyaya weliba. Aarkii weynaa wax badan kuma aysan qaadanin inuu fahmo dhibaatada haysata libaaxan yarka ah. Intaa kadib, wuxuu u kaxeeyey meel lag ah oo ay biyo ku jiraan. Markii ay lagta gaareen, ayuu ku yidhi, biyaha ka dhex fiiri muuqaalkeena, isu fiiri wejigayga iyo wejigaaga, jirkayga iyo jirkaaga. Markii uu arkay inaysan wax farqi ah u dhexaynin, ayuu yaab iyo fajac la fariistay. Waa markii ugu horreysay uu arko inuusan lax ahayn oo uusan laxna u ekayn, laakiin uu yahay libaax. Daqiiqad gudaheedna wuxuuba bilaabay inuu sidii libaaxay u hinraago. Waaba isagii oo gebi ahaanba makhluuq kale noqday. Inuusan lax u ekaynna wuu xaqiiqsaday. Wuxuu dareemay awood uusan weligiis horey u dareemin. Waayo markaas ka hor wuxuu ismoodayay lax daciif ah oo miskiin ah. Miskiinnimadii iyo daciifnimadii oo dhan dabaylaha ayay hadda ka raaceen. Haddaba fiidiyogan waxaa ku jira fariin qoto dheer oo ku qarsoon sheekadan quruxda badan. Kaliya isweydii awoodaha iyo taalantiga qarsoon ee maskaxdaada dhex yaalla. Waxaa tahay sidii libaaxaas oo kale, laakiin waxa kugu hareeraysan dad sidii laxaha oo kale ah, kuwaasoo kaa dhaadhicinayo inaad wax badan ka hooseyso sida aad ismoodayso adiga. Mar walba waxaa jiri doona dad asxaabtaada ah oo kaa dhaadhicin doono inaadan waxba qabsan karin noloshaada. Waa inaad ka soo dhex istaagtaa dadka noocaas ah oo aad garataa awoodahaada iyo goolashaada mustaqbalka. Maalintaas waxaad garatay awooddii libaaxa aan ka soo sheekeynay ee naftaada ku dhex nool. Idan markaas cid kaa horsaagi karto ma jirto waddada guusha.